Gucci, Gucci, get on your horsey. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada gurigayga beertiisa. Magacayga waa Sucaad. Waxaan deganahay gobolka Minnesota, wadanka Mareykanka ah. Maantana waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah laba box raba inaan furfuro oo aan ka raajicinayo insha Allah qalab iyo daawo aan raba inaan kala soo baxo sidaan ugu buufiyo geedka oo banaanka ii yaalo banaanka aan ku beeray. Geedkaasina waxaa la dhahaa it's a cherry tree. I don't know ku aqaani af Somali cherry tree, laakiin haddii oo geedo kala nooc oo fruits, I don't know how to say fruits in Somali. Fruits oo leh badanaa haddii oo camba banaanka ku beeratay, peach tree. Hoyo, how do you say apple in Somali? Tufaax. So anyways, waxaa jiraan different kinds of fruit trees ayagoo geeda ah aan insha Allah raba inaan beero, laakiin geedka ugu horeeyo oo hadda ii beerna wuxuu yahay cherry tree. Soomaali ma ku aqaan waxa cherry tree la dhaho, laakiin kaasa hadda ii yaalo. Markii aan beerayay bilooyin hore mise last year wuxuu lahaay caleemo, wuxuu lahaay oo cudur ay lahaayeen. There's this bug called aphids la dhahaa, and I think I had some great tips Facebook aan geliyay. Dad badanaa waxay isoo qoreen sida aan ugu shaqeyn karo naturally, meaning sidaan bahalladaas oo geedkayga cunayeen geedahana way dili karaan, sida oo aan u daaweyn lahay anoo chemical isticmaalin. Sidaan igu sheegay in a previous videos, meesha ani aad deganahay we have 4 seasons, hawo kala duwan. Mid waxaa jirto bilooyin baraf inuu da'ayso, bilooyin waxaa jiro barafku dhalaalayo uu kuleelku u soo gali doono, bilooyin waxaa jiraan oo kuleel bas u banaanka u yahay, bilooyin waxaa jira markuu kuleelku dhamaanayo oo qaboog uu bilaabanayo intuu barafku la gaarin. Waqtiga hadda lagu jiraa waxay tahay waqti fiican oo la dhahay geedaha oo fruit trees in la iska buufiyo. Inta ma arkino geedaha miro ee dhalin mise caleemo usoo bixin, waqtigaas waxaa la dhahaa dormant waxa la dhaho, and in simple term is wejifaan, geedka wuu jifaa. Does that make sense? Like it's still in a sleeping mode amal, because it's not producing time wali mala gaarin. Anyways, waqtiga hadeertaan geedka qoryo waayo caleen dhan ma saarno. Waqtigaas hadeertaan fiicana la dhahay in la buufiyo. Sidee ma arkino wixii oo xayawaanadii oo bilihii hore cunayeen markii aan beerayay oo cunayeen, kuwaas laga rabaa inaan ka daaweeyo. Kuwaasaytana waxaa la dhahay cudurro oo mise bahallo oo geedka kusii jiraan mise hadeertaan isa sii qarinayaan. Markii kuleelka hawada saacadan camal la soo gali doono inay ma arkina markuu caleenta geedka isa sii furaayo oo waxyaasha uu dhalanayo inta miro uu geedka u keenin, geedaha bahalladaasayta kaw ka siinayaan asagoo meel la gaarin. So I don't know if this explanation fahmaysin, because my Somali is not 100%. Hadeertaan waxaan soo gataa waxay yihiin geedka lagu buufinayo, caago oo wax buufinayo iyo wax qasan oo loogu talagalay in oo geedaha fruitska lagu buufiyo. Waxyaalo kale waxaa jiraan oo natural remedies haddii oo waxa ani soo gatay hadeertaan haddii ay heli karin. Waxyaalo kale waxaa jiraan oo biyo iyo saabuun isku qasi kartiin, geedihii ku buufin kartiin, ka bacdi xayawaanada geedaha cunayaan laga yaabaa inay dhintaan. So that's a natural remedy, because this is my first tree. Ma rabin inaan kaw ka siiyo. So waxay imaada hadeertaan caaganete, it's caagara culus waaye. So what I'm gonna do is I think kii buufinayana waa kana gudaha galaya umaleynaa like this. And then kana intaa ka xiraa. So I just lock this hadeertaan tubada sidaan ugu xiray, afkaana dhuujiyay markaas. And then wuxuu leeyahay this thing oo inta ka taagan, I think kan inaa hoos loo jiido. So halkan koraa ka furaysaa, meeshana waxaa ugu shubaysaa markaas biyihii iyo maxaa la dhahaa daawadii ugu talagashay geedka inaan ku buufinaysid. So hadeertaan kastoo yar akhrinayay
daawada isticmaal rabaa waxay tahay daawadanete gadaashiisa waxaa ku dhigan buugoo yar oo aan hadeertaan yar akhrinayo laba luuqada ku taalo aan ingiriiska bas akhrinayo hadeertaan and then gadaalna waxaa ugu qoran measuring aa u baahan tahay so hadeertaan waxyar aan rabin aan fahmay hadeertaan aan iga sheegaya so anyways meeshaaneta waxaa ku qoran waxyaalaha u isticmaalaysid explanation ayaa lagu siinaya haddii oo aan buufinayo fruit trees and nut trees including maxaa la dhahaa almond apple waa soo gadi doona insha allah bilaha soo socdo apple is tufaax avocado tree and then cherry tree ka hadda aa soo buufinayo waaye citrus oranges grapefruit lemon insha allah lemon waan ku beeri doona guriga so there's a lot of different fruit trees meeshaan ay yaalo pests waxaa waaye xayawaanada yaryar oo geedaha cunayaan mise laga yaabaa xataa caleemaha intay koraan geedka dhan ay ka eksin karaan haddana waxaa lagu sheegaya the different types of diseases sometimes depending on haddii oo fruit trees aa haysatid mise vegetables haddii aa ratid inaad buufisid oo xayawaano jiraan inay cunaan xayawaanadaasaa lagu sheegaya waxaa lagu sheegaya the diseases oo laga heli karo depending on if it's fruit or vegetables هذا جيكذا نمانة نكسر ربع إن بيه يداودن أسكو قصار بهذا so waxaan isdahay caag hadeertaan biyo ku shub geedkan hadda soo helay oo ka yar so the reason why kan isticmaalaa waxay tahay magaal ma ihi so geedkan weli ma aqaan sida loo isticmaalo laakiin maanta rabi inaan buufiyo geedkan rabi inaan soo tuso hadeertaan but because this is the first time I geedkan aan buufin doono insha Allah waxaa actually ii fiican in aan hal caleen bas soo buufiyo arko daawada in geedki in is heli karaan or inuu geedka uu dilaayo whatever the case may be. It's like you're testing it pretty much. So what I'm going to do is biyo ku shubaya inta and then what I'm going to do is hal qaanda mise hal fur ka yar camal mise hal fur camal ku qaada daawada kula shubaya halkan we're going to mix it banaanka aadayna markaas geedkaas hal dhinac uga soo buufinaya so haddii uu geedka uu daawada wax u gaarsiinayo insha Allah it's not too late geedka dhan ma buufinayo so caleentaas haday halaado caleentaas ka goynaya geedka we're going to do something different so we're going to go test this out right now so okay so intaana biyaha ku shubaya ka bacdi saas oo buufinayna so this is enough for now markaas hadeertaan daawada ku shubaya markaas so furka sidaan ay leedahay so kasta yariisa ka dulidiyay hadeertid waxay dhahayaan qaandadan yar camal ugu shubaysaa si fiican u lux markaas colorka biyaha isbedela markaas so banaanka aadayna marka okay so little mixture aan soo qaadanaya hadeertaan so hoos aadayna barakoonka banaanka markaas insha Allah wah inta geed ku sii socona waxa rabinaa inaan tuso meesha aanay hadeertaan
waxaa ujeedin hadda soo baxooyo waa toon meeshaanaytana maalidhood waa fiirsateena umaleena spinach ku beeray wallahi waana soo baxbixaya caleemaha yariiska ujeedin caleemaha yariiska ayagoo kaleeto yariisna meeshaan soo taagan yihiin waxaas cagaarkaas kulli waxaa waaye spinach meeshaan ka buuxo geedkaan rabaan inaan soo buufiyana waa kana this is what it looks like geedkaanete it's very young it's a cherry tree and mudacyaashan yariiska ka taagtaagana waxay noqon doonaan caleemo dheer oo hor u soo bixi doono oo miro soo saari doono insha Allah and suuq marka aad tagtid hadeertaan bac yar oo miro leh oo the fruit ka soo gadanaysid $6 camal waaye haddii oo for free oo geedkaanete ani miro iga soo baxayaan oo barxaddeeda ilmaha bararta u ahaa iyo waalidkayga ay ka guran karaan maasha Allah waaye sukan inta aan dhigto horta mirahani sidaan u ekaan doonaan insha Allah they're called cherry tree cherry al dhahaa mirahanete geedkaanete wuxuu ka fiican yahay gadaala instructions lagu soo qorayaa geedkaanete wuxuu u baahan yahay qorax badan u baahan yahay size-kiisana wuxuu noqon doonaa 10 to 12 feet tall by 15 to 20 feet wide dhererkii waxaa uu noqon doonaa 10 to 12 feet balaarkan wuxuu noqon doonaa 15 to 20 feet and then zonka wuxuu ku sheegayaa Mareykanka waxay kala yihiin meelo qabow iyo meelo kulul geedkan wuxuu ku noolaan karaa meelaha ugu qabow badan number 3 anaka number 4 aan nahay hoosna waxa lagu qorayaa marka geedka aad beeraysid sida u beeraysid iyo waxyaalaha laga baahan yahay so insha Allah hadeertaan because geedkanete wali wuu yar yahay rajo fiican oo ka leeyahay insha Allah sidaan ugu tijaabi daawadanete inay geedka ay wax gaarsiinaynin waxaan tijaabinayaa caleentan yariista tan hadeertaan hoostan ka soo taagan bas aan ku buufinayaa meeshaan geedka caleemihii kaleeto dhan aan wax ku buufin lahay so insha Allah maanta kan bas aan wax buufinaynaa maanta so si fiican aan u qasaaya ka bacdiya si fiican u qoynayaa waxaa la dhahay waqtigan camal hal la buufiyo because geedka wixii cunaayo dhan hadda camal ma arkino laga yaabaa waqtiga qabowga inay dormant ay yihiin mise ay jiifaan so insha Allah geedka ilaahay wax ma gaarsiinayo kurtankiisa hadda sidaan u egyahay washaaneeta cadaankana waxay maxaa la dhahaa toosinaysaa geedkii so ujeedin geedka geesgeesus hadduu soo jeedaa mise uu I don't know it's laying on each side on one side hadeertaan so xarig inaan soo qaado waay aan geedka asaan oo la xiro kabacdi markuu geedku sida si u sii koraayo insha Allah inuu ma arkino toos u sii koro haddii kale tada sidaan aan ku daayo uu geedku sii weynaado sidaan u bixi doonaa ma rabin inuu saas u baxo inuu toos u baxaan raba insha Allah so maanta video halkaan ku soo koobeena insha Allah geedan yariista bas hadeertaan aan buufinay caleentan yar haddii caleentan arkinay wax gaartayna oo imaanaya dhac halkaan ka gooynaya